اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada bodcastiga alqalam bodcasti. magacaygu waa Dr. Fawzi Cali. nolosha aadanuhu waa mid u dhaxaysa baahi iyo baraare, cudur iyo caafimaad, leeleel iyo ladnaan, kulan iyo kala tag. liibaanuhuse waa qofka magan gashada allah subxaanahu wa tacaala. maanta kusoo dhawaada xalaqadeennii labaad ee aan kaga hadlaynay jacaylka allah subxaanahu wa tacaala. allah subxaanahu wa tacaala jacaylkiisu noocyo fara badan buu kala baxaa. maanta waxaynu kaga hadli doonaa allah subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay jacaylka bini aadanka, siduu uu ku dhashaa jacaylka allah subxaanahu wa tacaala, waa maxay fawaa'idiisu, maxaa lagu gaadhaa jacaylka allah subxaanahu wa tacaala. qof walba oo inaga mid ah wuu jecel yahay inuu ilaahay jeclaado subxaanahu wa tacaala, waayo fitriyan qofka bini aadamka abuurkiisu ayaa u samaysan inuu qof walba fisho allah subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa, inuu dareemo oo uu fisho inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay. mar walba uu allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa inagula hadlayo, wuxuu inagula hadlaa ilaahay luuqad jacayl ah, naxariis ah, raxmad iyo wanaag ay ku dheehan tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay bal fiirso, yaa ayuha aladiina aamanuu. ilaahay isagoo markaa inala hadlayo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah. yani kuwa ilaahay rumeeyey ayaa yani jacaylka ilaahay u qabaan u ka badan yahay, yani jacaylka isagu qaba jacaylka u qabaan baa ka badan. ilaahay mar kale wuxuu ku leeyahay qur'aankiisa man kaana yarjuu liqaa'a allah fa ina ajra allahi la'aat. yani ilaahay mar walba isagoo inagula hadlaya xubullah warajaa'ih waraxmatih waridaa'ih, yani luuqad jacayl ayuu mar walba ilaahay noo muujinaya. ilaahay mar kale wuxuu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allah, haddaad jeceshihiin ilaahay fattabicuuni yaxbibkum allah wayakfir lakum. yani raaca oo mar walba wuxuu ilaahay yani nebigiisa maxamed sal allahu alayhi wasalam idinku soo dhibay raaca oo ateeca. mar walba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inagula hadlayaa luuqad qabow, jilicsan, naxariis leh. ilaahay mar kale wuxuu yidhi fasawfa ya'ti illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah. ilaahay yani laba kelmado laguma soo koobi karo, intaasoo jeer buu ilaahay qur'aankiisa inagula hadlay luuqadda jacaylka ah. mar walba allah subxaanahu wa tacaala sifa jacayl iyo naxariis leh ayuu inagula hadla qur'aanka. sidaa darteed qof walba inaga mid ahay wuxuu jecel yahay inuu jacaylka allah subxaanahu wa tacaala uu kasbado jacaylkiisa oo uu gaadho. waxa ugu horeeya ayaan ku bilaabi doonaa maanta waxa weeye, horta jacaylku waa maxay? jacayl waa maxay? jacaylka tacriifkiisa ama qeexitaankiisa uu fara badan yahay, qolaba meel ayay u qaadaa, laakiin waxa aan kaga soo gaabsanaynaa laba kelmadood ayaan kaga soo gaabsanaa. tacalluqu lqalbi bimaa huwa kariim, yani inuu qalbigu ku tacalluqo waxyaabaha wanaagsan ama fiican ayaan kaga soo gaabsanaynaa tacriifkiisa ama qeexitaankiisa. jacaylku waa intaas un, laakiin waa mashaacir iyo dareen gooni ah oo qofku soo gashay yani qulubtiisa. jazaakum allahu khayran. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. allah inagu kulmiyo jannadiisa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk.